xubin ka tirsan xildhibaanada Slovenia ayaa xilka ka digay kadib markii uu dukaan ka xaday rooti la jeexay oo la dhex geliyay wixii lagu cuni lahaa. Xildhibaanka ayaa sheegay in shaqaalaha dukaanka ku yaala Libjonia ay isku mashquuliyeen oo uusan wax la hadlo waaye. Jirjin ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu ka xanaaqay sida loola dhaqmay waxa uu go'aansaday inuu tijaabiyo ilaalada dukaanka isagoo rootigiisa kala baxay. xatooyadan ayaa la ogeyn balse xildhibaanka ka tirsan xisbiga talada dalkaasi haya ayaa markii dambe ku adkaystay inuu dukaanka ku laabto si uu lacagtiisa isaga bixiyo. xildhibaankan ayaa raaligelin ka bixiyay waxa uu sheegay in uu ka xun yahay tijaabada uu sameeyay. ajaanib ka barbar dagaalamaysa al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar ka dhacay duleedka degmada Afgooye sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyahayaga Axmed Maxamed Ibraahim. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka hortageen weerar al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanada Tixsiile iyo Waraaboole ee ku wada tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. al-shabaab ayaa weerarkaasi loogu dilay dagaalamayaal ka tirsan sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. taliyaha ururka 35aad guutada 7aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle Maxamed Cabdullaahi Caraaye oo la hadlay idaacad ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka al-shabaab ay ku qaadeen fariisimada ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada Tixsiile iyo Waraaboole ay ka hortageen taabadalkeedana aanan jirin fariisimo ay la wareegeen al-shabaab. inta wuxuu ku daray hadalkiisa taliyo in dagaalamayaal iyo saraakiil sare oo al-shabaab ahi isla markaana Soomaaliya ajnabi iskugu jira kana qayb qaatay weerarka lagu qaaday fariisimada ay ku leeyihiin Tixsiile iyo Waraaboole ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay u suurtagashay inay dilaan. taliye Maxamed Cabdullaahi Caraaye ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab inta ay kaga saarayaan qaybaha ay kaga sugan yihiin gudaha dalkeena Soomaaliya. dhowr jeer ayaa xubno ajaanib ah oo ka barbar dagaalamayay al-shabaab waxaa lagu dilay qaybo ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya. dhanka kalena al-shabaab ayaa maanta madaafiic waxa ay ku weerareen saldhigga deegaanka Balidogle ee Shabeellada Hoose. Axmed Abukar Sibriye oo warkay la akhrinaya ayaa soo koobaya. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa inoo xaqiijiyay in weerar madaafiic loo adeegsaday lagu qaaday saldhigga weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay deegaanka Balidogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa KNN u xaqiijiyay in madaafiicdaasi ay ku dhacday saldhigga Balidogle balse ma uusan sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay madaafiicdaas. dhinaca kale war lagu daabacay baraha taageera al-shabaab ayaa lagu sheegay in mas'uuliyadda weerarkaasi ay sheegatay al-shabaab inkasta oo weerarkaasi aysan al-shabaab ka bixinin wax faahfaahin dheeri ah marka laga soo tago sheegashadooda. al-shabaab ayaa inta badan weerar ay u adeegsadaan madaafiic ku qaada xarumaha dawladda Soomaaliya looga taageero dagaalka ay kula jirto al-shabaab waxaana xarumahaasi qayb ka ah xeryaha ay AMISOM ku leedahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dhinaca kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Mareykanka oo ku saabsan madaafiicda ay al-shabaab sheegatay in ay ku weerartay saldhigga weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Balidogle maadaama jiritaanka warkaasi ay dhankooda inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. markan gobolada dhexe haddii aynu isla aadno caruur dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay miino ay kula qaraxday deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sida uu warkan inoogu soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiweli Tooxow. wararka ka imaanaya deegaanka Xeraale ee ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan inay caruur u geeriyoodeen amiino la qaraxday xilli ay garaacayeen amiinadaasi. inta la xaqiijiyay qaraxa amiino ayaa waxa ku geeriyooday hal qof halka mid kalena uu ku dhaawacmay sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud. caruurtaasi ay amiinadu la qaraxday ayaa la sheegayaa in dhammaantood ay ahaayeen kuwa isku qoys ah oo wada dhashay isla markaana garaacay raadiga waxyaabaha qaraxa oo yaalay meel u dhow hoygooda. Faysal Cabdillaahi Maxamed oo ah aabaha dhalay caruurta amiinadu la qaraxday ayaa inooga waramaya sida ay wax u dhaceen. laga sheegi karo sababta waxa weeye malkumoodiga marka meel guri u dhow bay ka soo qaadeen guriga la yimaadeen guriga la soo galeen meesha waa meesha saartay dagaalo iyo waxyaabahaas aad u badan baa ka dhacay hadda waqti aad u dhow marka guriga meesha goobta lafteedu ku yaala ama dhibaato ay ka wada dhacayso marka meel guriga ka badbaday oo aad bisaan ka soo qaadeen
kulley sidaasay ku garaacay carruurta waa badnaayeen carruur badan baa guriga kulley joogtay marka ninka kamid aha kulley meesha keenay marka waa kulley qadartii waxa weye intii ilaahay qadaray ku dhacay doorashada wiil baa dhintay hal mid horta kulley waxaan ilaahay wax ka qaban kartaa dhacdadii labaadna ma ahan waa dhacdadii boqolaadba la dhihi karaa kulley xaqiiqatan toddobaadkan unbay maaragtay ama bilahaan hadda kulley waqtiyahan hadda isku dhawaabay dhacdadii labaad noqonaysaa laakiin waa dhacdo waqti kasta soo laalaabata marka kulley ilaahay unbaa maaragtay wax ka qaban kara laakiin dadka un kulley dhibaatadan shaqooyinkaas maaragtay kulley ku hawlan oo maaragtay barnaamijyadaas ka shaqeeyo baarista iyo waxyaabahan ay haraaga ka shaqeeyo waxaan udaas ahay inay kulley deegaankaas ay tiro gaara u yeeshaan oo si maaragtay waxyaabahaas la suu degi kara in laga nadiifiyo dhacdooyinka noocani oo kale ah ayaa ku soo badanaya deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud waxaana taasi loo malaynayaa in weli dhulka miyiga ah ayaa ku dambeeyaan araadiga walxaha qarxa waxaana shacabka ku nool gobolka galgaduud ayaa ka codsadeen maamulka galmudug iyo hay-adaha qaabilsan mina baarista inay wax ka qabtaan araadiga walxaha qarxa maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay malaayiin dollar ku bixinayso nabadda Soomaaliya sida warkan ay ku faahfaahinayso Shamis Xasan Haruun. qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda waxay bilaabaysaa sanduuqa dhismaha nabadda kaasi oo lacag ka badan 60 milyan oo dollar ku bixinaysa taageerada dhismaha nabadda Soomaaliya. Hawlgalka qaramada midoobay ee taageerada Soomaaliya UNSOM ayaa sheegay in barnaamijkan cusub loo bilaabayo si loo muujiyo isku xidhnaanta mashaariic cusub oo dhawaan bilaabanaya. Mashaariicda cusub waxay sidoo kale Soomaaliya ka caawin doonaan qaybaha ahmiyadda leh ee dhismaha nabadda, qorshaha horumarinta qaranka, istiraatiijiyadda xasilinta dalka, qaab dhismeedka wadajir iyo dib u heshiisiinta qaranka. barnaamijkan cusub waxa uu ka kooban yahay 9 mashruuc oo lagu qiimeeyay 30 milyan oo dollar waana calaamad sanduuqa dhismaha nabadda uu ku kordhinayo taageerada nabadda Soomaaliya ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo isu diyaarinaya daafurka malaayiinta Soomaaliya lagu caawinayo. qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka taageerta dib u dhiska nabadda, maamul wanaaga iyo mashaariic kale oo horumarineed. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland ayaa lagu eedeeyay in dhibaato uu ka wado degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxaa ka taagan isqabsi dhinaca maamulka iyadoo maalmo ka hor uu madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siidaadan xilka ka qaaday gudoomiyaha degmadaasi isla markaana uu ka hor yimid gudoomiyaha xilka laga qaaday gudoomiyaha degmada Baardheere Ismaaciil Sheekh Cabdi oo xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siidaadan ayaa waxa uu ku eedeeyay dhibaatooyinka ka jira degmada Baardheere madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siidaadan kaasi uu ku sheegay in magaalada Baardheere uu ku hayo dhibaatooyin badan oo ay kamid tahay dhinaca amniga. waxyaabaha keenayna waxa weeye waa arrin ay ku lug leeyihiin mas'uuliyiinta Jubbaland gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid oo hadda degmada ku sugan qafsi iyo dhibaato iyo maartay jahwareer oo degmada ku wada weeyaan marka kale insha Allah taala meeray u dhacdo waan ogaan doonaa laakiin waxa weeye xaaladahaas qafka waa jiraan hadda madaxweyne ku-xigeenka waxa qafka wadaba oo degmada dhibaatada ka wada waa asag khilaaf yani siyaasadeed oo ka jira waa dareemi kartaa alxamdulillah hadda wax dhibaa ma dhicin wax hadda shidaad si dheerna ma jirta laakiin khilaafki iyo maartay dadkii waa dareemayaan meeshii qorshaad iyo wax marna iyo wax maartay shaqooyin wanaagsan inaysan ka jirin wixii jahwareer uu ka jiro waa la dareemi karaa haddana degmada waxa weeyaan gudoomiyaha sharciga oo ka jira degmada waa aniga dekreetada ii timid oo aan ku magacawnaa dekreeta aan dambi ku galayna ma ahan dekreeta aan ku shaqeeyayna ma ahan marka dekreetada ayadaan ku magacaabana ayadaana maartay gudoomiyaha sharciga oo degmada bulshadana ay wadata shakhsi ahaan inuu qabto xaq u leh dekreetadana u haysto waa aniga marka waxyaabaha kale marka waa qas waa wax dad ay wadaan dad raba yani inaysan deegaanka u degin oo horumar u gaarin. dhinaca kale xiriir aan la sameynay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Siidaadan ayaa inoo suurtagelin si aan wax u weydiino eedeymaha loo soo jeediyay oo ku saabsan khilaafka ka taagan magaalada Baardheere oo hadda hakad uu ku jiro dhaqdhaqaaqeeda. Farxaan waa mahadsan tahay. booliiska gobolka Minnesota ayaa baaraya toogasho loo geystay wiil dhalinyaro Soomaali ah kaasi oo u geeriyooday toogasho aan la ogeyn cidda u geysatay.
falkan ayaa waxa uu dhacay talaadadii lasoo dhaafay sida laga soo xigto booliiska gobolkaasi. sidoo kale booliisku ma aysan shaacin magaca wiilka Soomaaliga ah ee lagu dilay gobolka Minnesota, waxaana sidoo kale booliisku aysan sheegin cidda toogatay wiilkaasi. Washington Post ayaa daabacday in dadka ku nool gobolka Minnesota ee aan la xalin dhibaatooyinkooda ay hayaan xogtooda, isla markaana tan ugu daran ay tahay mid ay la kulmaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Soomaali badan ayaa horey waxaa loogu dilay gobolka Minnesota. biyo-la'aanta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa gaartay in fuustadii biyaha la iibiyo $100 oo doolarka Mareykanka ah, sida uu warkan ku faahfaahinayo Cumar Maxamed Soomane. waxaa sii kordhaya qayladhaanta xoogan ay kasoo yeeraysa qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Sool, kuwaas oo 24 saac ee lasoo dhaafay sheegayay inay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah kadib markii ay gabaabsi ka noqotay biyihii iyo baadka ay haysteen, maadaama deegaano ka tirsan gobolka Sool laga soo sheegayo in abaaro dadka iyo dunyada saameyn ku yeelatay ay halkaasi ka jiraan. wararkii ugu dambeeyay idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaano ka tirsan gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Kulaal, ayaa sheegaya in xaalad halis ah iminka ay ka taagan tahay kadib markii biyo la'aan baahsan ay ka dhacday deegaanka, taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanadaasi. Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ah gudoomiyaha deegaankaasi oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa sheegay in deegaanka xilligan fuustada biyaha la kala siisanayo ilaa $100 Mareykanka, taasoo uu sheegay inay aad ugu adag tahay in ay iibsadaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi maadaama ay yihiin dad reer guuraha xoolo dhaqata. gudoomiyaha ayaa sheegay in iminka 5 deegaan oo ka mid ah kuwa hoostaga deegaanka Kulaal ay iminka dadka isugu tageen, taasina laga cabsi qabo in ay dadku uu ka dhaxlasho isqabqabsi ku saabsan biyo yar oo halkaasi ku jira, maadaama dadka intooda badan ay xoolo ay wataan. ugu dambeyn gudoomiyaha ayaa fariin u diray madaxda cusub ee maamulka Puntland iyo cid kasta oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool in ay loo istaago dadka ku dhaqan deegaanadaasi, maadaama xilligan xaaladooda ay tahay mid wax ka qabasho u baahan. warka duhur ee keenan ayaad dhageysanaysaan. duhur wanaagsan. akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan. dowladda Hindiya ayaa waxa ay ku baaqday in cunaqabatayn lagu soo rogo maleeshiyaadka Jaysh al-Maxamed oo weerar ismidaamin ah ku qaaday ciidamada dalkaasi oo ku sugan gobolka Kashmir. xukuumadda Delhi waxa ay qaramada midoobay ka codsatay in liiska argagixisada ay ku darto maleeshiyaadka ka dagaalama Pakistan. ugu yaraan 40 ka mid ah ciidamada sida militariga u tababaran ee dalka Hindiya ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen. Pakistan waxa ay sheegtay in ay ka xun tahay qaraxa, balse waxa ay beenisay eedeymaha ku saabsan in ay wax ka ogeyd weerarkaas. bishii Sebteembar ee sanadkii 2016 ugu yaraan 17 ka mid ah ciidamada Hindiya ayaa lagu dilay weerar lagu tilmaamay midkii ugu darnaa ee lagu qaado ciidamada dalkaasi ee ku sugan gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya ka maamusho. ugu dambeyntiina dhageystayaal, madaxweynaha dalka Haiti ayaa sheegay inuusan dalka uga tagi doonin in ay maamulaan koox burcad ah oo ka ganacsada daroogada. hadalka madaxweynaha Haiti ayaa kusoo beegmaya xilli dalkiisa ay ka taagnaayeen dibadbaxyo rabshado wata oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof. dadka dibadbaxa dhigaya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha in uu geystay musuqmaasuq, waxa ay ugu baaqeen in uu xilka iska casilo. dhanka kale, Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa qaar ugu baaqay in si degdeg ah ay kaga soo baxaan dalkaasi. dowladda Kanadana waxa ay si kumeel gaar ah u xirtay safaaradii ay ku lahayd dalkaasi. guud ahaan warkii duhurnimo